madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hamigiisu ahaa xilliga ganacsadaha ahaa inuu carabta lacagta haysato ka soo xaabiyo xilligii doorashadiisa ayuu isku soo sharaxay sheegayna inuu ka soo gurbin doono lacagta iyo dahabka carabta dul jiifto dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman ama loo yaqaan MBS balilada qaabka wax looga gadaya hub ayaa laga gadaya lacagta ugu yar wax looga gadayana waxa ugu yar $3 billion $533 million, $525 million. That's peanuts for you. Should have increased it. $880 million, $645 million, $6 billion. That's for frigates. $889 million, $63 million, and that's for various. Am I wrong for wanting better? Should I just settle forever? THAAD system, $13 billion. The C-130 airplanes, the Hercules, great plane, $3.8 billion. The Bradley vehicles, that's the tanks, $1.2 billion. And the P-8 Poseidons, $1.4 billion. And what it does is it really means many, many jobs. We're talking about over 40,000 jobs in the United States. So we make the best equipment in the world. falanqayn guud markaan dul istaagna lacagta Sacuudiga wax looga gadayo ayaa ah $525 milyan oo dollar halka maraakiibta iyo diyaaradaha kale looga gadayo $13 bilyan oo dollar madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay lacagta Sacuudiga ay bixiyeen inay la mid tahay 40,000 oo shaqo oo laga hirgeliyay dalka Mareykanka inta looguma siminay maxaa dhacay kadib We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. Don't forget about me. We protect Saudi Arabia. waxaan Would you say ilaalinaynaa they're Sacuudiga rich? waxaan leeyahay waa taajiriin laakiin waxaan jeclahay boqorka boqor Salman boqorka waxaan leeyahay waan ku ilaalinaynaa You might not be there for 2 weeks without waxaan u us. malaynayaa inaad xagga aadan joogi karin 2 isbuuc inaga la'aanteen waa inaad bixiso lacagta ciidanka